marka maraafiicda magaalada ku habsanaysa iyo hadii la kuro iyo hubka waaweyn inaanay haleelin ciidamadeena gudaha ku jira waana istiraatiijiyad dagaal ayaa ciidamadeena magaalada banaanka dib looga saaray waana runtii aragti fiican weeye sababta waxa weeye magaalada waa magaalo la isku wada jiro weeye suuqa isaaqi baa jooga suuqa hoose ciidankeena baa jooga marka qoriga marsaasta laga rido magaalada banaankeeda maxaafadooda ku dhacaya waa riski weeye sida darteed ciidamada haasa banaanka magaalada looga soo saaray muuqaalada oo jeedaan waa ceerigaabo xaafadda hartiga oo la bilaqeysanayo halka hartigu ama wiilka qalaska oo ku xisaabtamo qaniimo qori iyo gaari iyo hadii la kuurayay dabaabad wiilka Isaaq ee maanta soo jirka waxa uu qaniimo ku xisaabtamaan keeshali iyo inuu hadii la kuurayay sariir iyo joodariyo firaashyo inuu waliba laga tagay oo dadkii lahaa aanay joogin inay markaasi dhahaan waanu qaniimaysanay Isaaq iyo harti sidaas kale yihiin Isaaq waxaan leeyahay ceyriin calooshin ha u qarinina dagaalku waa bilow weey magaalada ka haydina waa noo muuqdaa ciidanka ay dul fadhiyana wad garanaysaa ninba waxa laga hayaa wiilal dhaleeba marka dalfadu jiid aabihi markaas ku aabe hooyada ha ku dheereen hooyaha ku dheereen imika waxaan leeyahay annaga bililqadaas iyo muuqaalada la duubaya iyo anaga waxa noo tahay deel kureey ragga hawlahan gacanta ku haya inay guul weyn noo tahay sababta ay meesha waxa ka baxaysa fursad kasta oo meeshaasi uga imaan lahayd nabad gacan ku rumisa nabad aabheed wasta nabad ruwaayada inay meesha ka baxdo oo isaaqaya hartiga ceerigaabo degan ay kala dareeraan oo ay kala tagaan anaga guul weyn bay noo tahay meeshaasna lagu kala adkaado ceerigaabo oo ninka awood leh uu maamulo warka rasmiga ah idin sheegay waxa weeye waa la tashtay go'aan baa la gaaray Warsangeliga dhulbahante waxa lagu heshiiyay magaaladaasi inay gacanteena soo gasho dhammaan ceerigaabo optionka ugu horeeyay maalinta hore muxuu ahaa war xaafadda hartigu dugo aynu naga maamulano war xaafadda isaaqu dagana isaaq ha maamusho albaabkaas waa soo xirmay maanta waxaan ku faraxsanahay Warsangeliga dhulbahante inay ka midoobeen ceerigaabo gacanteena inay soo gasho wax kasta oo ka dhaca inay gacanteena soo gasho taasina waa guul weyn weey ceerigaabo waanu soo xaababiya dhaansanay haddaan nahay hartiga ceerigaabo degan oo xaqiiqadu waxay tahay ceerigaabo waxa la ogaaday oo xaqiiqa ah oo dagaaladii shalay ka dhacay marxaati ka ahaa durbaba ciidankeenu inay guulo waaweyn ka hoyeen darbaxana ku dhufteen taas waxay sababtay maanta inay caradii kula dhacaan goobahii ay ka baxeen ciidankeenu ay marka gudaha u galaan xaafadaha ay bilaqeystaan warbaahinta ay muuqaalo duubaan oo ay ku nafisaan oo ay ku calo burburaan waxay taas ku tusinaysaa 2 toddobaad inaanu halka qabanay neefta u diinay suuq hoose inay food soo galiyaan la waayay awood ay ku soo galiyaan la waayay maalintii ugu horeysay ay food soo galiyeen oo maalintii cashuurta iyo boonada lagu bilaabay ee xabadu bilaabatay ee waxa weey aakhir laga xaday waxay ka dhaxleen waxa weey maanta caawa tafahooda waxay ku haystaan dhibaato in ku filan isaaq sababta waxa magaalada waa la dul joogaa qof daarood oo ceerigaabo caawa ku hadhay ma jirto waxa loo soo biyo dhaansanayna waa ceerigaabo waxa loo soo socdana waa ceerigaabo ciidamadeenu iyaga amar dawladeed ba ku baxeen waana amarka saraakiisha inaga sareysa hadalada iyo warbixinaha helayna waxa weey waan bogaadinayaan sababta waxa weey waxaan dhisan doonaa ceerigaabo qurux badan ceerigaabo wanaagsan ceerigaabo solaas aameen dhisan solaas aad qurux badan maanta inoo ma dhisna ceerigaabo qurux badan bay inoo dhismaysaa midna way idin sheegay halkii ugu wacneed bicaawo taaganta isaaq iyo daaroodka ceerigaabo degan ama hartiga ceerigaabo degan inay kala soocneen si saad wax u dhaxay ma jiraan Soomaa kan waa isaaq kan waa daarood baa lagu leeyahay hartiga ceerigaabo taas good point waa absolute waa guulaha la gaaray ka mid tahay mid kale way idin sheegayaan horgaladii
ceerigaabo joogay ee hadda ka hor halkan ka sheegi jiray ee aan oran jiray dadkiina la dareen noqda war dadkiina raaca war dadkiina soo raaca you can imagine marrumaysanaysa shalay in maxaabiis ahaan loo wada qabsaday horgaladii warsangeli iyo horgaladii dhulbaante aad baan ugu hambaliyay aad baan ugu farxay marka arkay dhowr horgala oo laga fadhii waayay oo aragtida waxa way gurcan ee jabhada argixisada SNM waxa way faafinayay halkan magacyadooda sawirradooda aad ka daawateen shalay markaan arkay iyagoo laba dilo oo xiran oo isaga maxaabiis waa ku diirsadaano sababta ma garanaysa war waxaan uga digay wixii aan uga digayay wixii lahaan ka soo carar wixii la war waxaan waxaagi ma oo dadkaaga dawladda soo raac sumuusan garan waayin dhibkeeda iyo xanuunkeeda markaa inuu dareemo weeye fool xumada ay leedahay inuu dareemo aanu xalay markaan daawado waa ku diirsada sababta loo xiray ma idin sheegaya magaalada markii shalay dagaal ka bilowday iyo banaankaba waxa magaalada bartankeeda ciidankeenu ay ku cibaadaysteen askar fara badan oo xaggooda ah meel laga soo haleelan la garan waayay niman karo marka horgallo oo maqaayad fadhiyo oo tuuti SNM xiran oo waxa weeye hadii la kuureysay waxa weeye nidaamka u shaqeysan waaba la dareeriyay qori dibada la dhacay idinkaana basaasiyay baa leeyahay markaan leeyahay annaga caawa guul weyn bay noo tahay hartiga isaaqana kala socmaan ceerigaabo caawa aanay ninka isaaqana waxa weeye harti aanu bixinayn ninka hartina uu soo isaaq bixinayn waa guul weyn weeye isaaq waa caadif marka uu leeyahay markaas weeye kama ana fikir nimanka magaalada dusheeda joogaan kama fikir war waxan waa dagaal kama ana fikir war meesha dagaalku ma qabsan kama ana fikir war meeshan waxa weeye ragan iyo deegaankooda xaafadahooda waxa weeye ciyaar waa gali dambe aan la hadlay hadaba laba qolaba dhulbahante iyo warsangeli dhulbahante waxaan leeyahay horta waa mahadsantihiin qaabka ciidanka militariga SSC Khaatumo u garab istaagteen qabaylkan la hadlaya waxa loo baahan yahay hawshu meel fiican bay noo taalaa waa fiican tahay runtii guul baa malmalan aniga hadda absolutely xogtaan hay'adda wax badan ma rabaan inay la wadaago warka ugu muhiimsan ay sheegay waxa weeye war dadka deegaanka ceerigaabo kuwa ee dhulbahante waxa loo baahan yahay inaad hogaamisaan oo aad garab igashaan noqotaan ciidankiina absolutely sababta waxa weeye dhibka ugu weyn jira waxa weeye wiilka ka yimid hawd iyo wiilka ka yimid nugaal weligii mu ari ceerigaabo marka ninka la rabo inuu hago oo uu hogaanka u qabto weydika way waa dhulbahantaha ceerigaabo deegaanku awey marka laga yimaado maamulku hawl wanaagsan buu qabtay bal dhageysto oo maqla ciidanka SSC Khaatumo wuxuu difaac kaga jiraa masaafada oo ogtay 700 kilomitir buu difaac kaga jiraa ilaa Qorlugud baliyaciye iyo Boqorkeen ilaa iyo og iyo hadii la kula salinta ilaa iyo ceerigaabo 3 kilomitir waa masaafo 700 kilomitir way waxa ku sugan waa ciidankii SSC Khaatumo marka waxa loo baahan yahay dadka reer SSC Khaatumo qabaa'ilkan la hadlay qabaa'ilka waa in aad barbar istaagtaan ciidan ahaan iyo hadii la ku taakulahaanba waa inaad garab istaagtaan ciidamadiina way oo qabiilka dhulbahanta la hadlay waliba waa in qabiil waa in hadii la ku ciidanka la isugu qoraa qabiil yaan lagu halin ciidanka militariga kaliya halka waxaan ka dagaalamay ciidamadooda militariga qabaa'ilka hubkii bay qaateen waa inaynu nidaamka ilaalinaa kala dambeynta ilaalinaa awaamirta qaadanaa saraakiisha aad maqashaan kala dambeyntu waa muhiim weeye waxa weeye taas dhulbahantaan leeyahay qabiil waa in qabiil walba meesha waxa weeye tii qabiilnimo waa in la helaa tii maamulka waa la hayaa tii qabiilnimo in la helo weeye bogaadinaya ciidamada warsangeli ee yimid runtii iyo kuwa jidka kusoo jiray imaan doona ilaa caawa soo galaya waan hambalyeynaya waxaan leeyahay warsangeliga ceerigaabo deganna waa in aad idinka iyo naaleeye axmedka ceerigaabo degan iyo nimanka Bahoos laba iyo nimanka hadii la kuuro Nuux Cumar iyo nimanka hadii la kuurayay naaleeye axmed ee Cabdalla naaleeye iyo Cabdalla iyo Barigaaye iyo dhamaantiin waxaan leeyahay idinka ayaa loo baahan ciidankan hogaamisan waayo wiilka warsangeliga ka yimid bari iyo wiilka ceelaaye ka yimid ama laasqor ama baran ka yimid iyo wiilka dhulbahanteen ka yimid hawdi nugaal aan weliga ceerigaabo arag waxa loo baahan yahay inaad idinku hogaamisaan baa loo baahan yahay warsangeli waxaan leeyahay guul go'aankaad qaadateen waxaanu difaacana magaaladeenii waxa way ceerigaabana
markii hore kaga talinayn qolo walba xaafadeeda maamulato albaabkaas waa soo xidhnay magaalada Ceerigaabo 30 sano ay u soo dowladeeyay 30 sano oo dambe inaga dowladeeyna inaa qabsadaan absolutely magaalada dhan gacanteeda galaysa waana goorma waa marka ay noqoto absolutely meel qurux badan Ceerigaabo qurux badan ayuu dhisana cidda wax ka dumayaan wayaga way inagu soo takisana ugu dambeeyay dheef kuma qabin cashuur kama qaadanayn waxa way hadii la kuuray dheef kale aynu ku qabanay ma jirto ninkan Soomaaliya degmo ku lahayn ninkan meel u qaxa haysan ninkan magaalo xaafada Ceerigaabo ka degan meel aan ahayn maanta shacabkii waxa way isaga hadii la kuuray maatadii guriyihii ay bilaqsanayaan warninkaas wax kaga qabanayaan inaga wax dhulkeena yaala ma jirto absolutely dagaalka Warsangeli iyo dhulbahante baan ku galeynaa waxaan u baahanahay si dhiifoon oo xaqiiqa inaynu dagaalka u galo oo aan ka fara buuxsano alxamdulillah maanta guul waxaan ku joognaa Ceerigaabo isaaqay hartiin la kala soocay oo ay kala soocmeen oo Ceerigaabo baafursan tahay taas guul weyn ah ama Warsangeli dhulbahante dheh meel ka soo joogan dalka gudihiisa dalka dibadiisa u dagaar garooba harbul akbar caawa xaqiiqada isu sheeganaa Ceerigaabo caawa magaalada waxay gacanta ugu jirtaa jabhada argagixisada Islam ciidankeena waa ka saaray xeelad dagaal baa looga saaray waxa weeye waana qodobada looga saaray waxa weeye in malaafiicdu aan gaarin xafadeena iyo ciidankeena oo aysan inaga wax hadii lagu waxyeelo aysan inoo noqon ayaa ciidanka looga saaray awood iyo tamar ciidanka ay kaga saari kareen magaalada dama dhicin laba toddobaad ku jiraan haday awood iyo xoog iyo ay hayaan hada waxa weey dagaal bay ku qabsan lahaayeen magaalada iyo xaafadeena taasi waa istiraatiijiyad dagaal saraakiil bayna hogaaminaysa waliba waxaan ku talinayaa sidoo kale waa in la raadiyaa saraakiishii khibradda lahayd meeshan waxay u baahan tahay dalyaqaan bay u baahan tahay si kastoo awood u leedahay waa in dalka kala taqaanaa sargaalka ciidanka hogaaminaya iyo ciidamadaba waa in guuto walba waa inuu ku jiraa ugu yaraan 3 ama 4 gaari oo reer Ceerigaabooda oo garanaya wado walba iyo rag garanaya weeysta waa in dalyaqaannimadu yar ma si kastoo awood u leedahay si kastoo wax ka soo haystid dalyaqaannimadu yar ma marka guuriga gobonimo isaaqna waxaan leeyahay waa hawl fiican ma ka shaqeysan arinta horgalada qaabkaad ka yeesheen waa idinku hambalyeynaya inaad qabataan wixii idin ninkina idin shaqeynayay guur job baan leeyahay magaalada inaad waxa way bilaqastan xaafadahana hadda anaga waxa way dhiig bay noogu shubaysaa waa guur weyn absolutely wada hawsha bilaqada wada muuqaalada duuba absolutely fursad kasta oo nabad ku imaan lahayd ma dulaysa oo gacmo ku rabisa in meesha ka baxdo anaga dambaba noogu jirto marka khayr baan bidin insha Allah ta'ala